وهاجاك dhegeystayaal imkana waxa ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad barnaamijyadii taariikhda Soomaalida aanu kaga warramaynay. Daraawiishtii Ingiriisku waa uu ka adkaaday hase yeeshee iskuma soo dhaweynin maamulka Ingiriiska iyo dadweynaha. Dareenkii uu sayidku ka booday ee dugsigii Dhaymoole la oran jiray ayaa weli jiray. sanadku markuu 1926 lix dugsi hoosaad oo la qorsheeyay ayaa waxa u socon waayeen markii la diiday cashuurtii xoolaha laga qaadi lahaa magaalada Burcana DC lagu dilay hase yeeshee waqti dambe ayaa arday Soomaaliya loo diray wadanka Suudaan kuwaasi oo markii dambe halgan u galay sidii dugsiga uga furmi lahaayeen dhulkii Ingiriisku uu ka talinayay. halgankaasi waxbarashada raggii hormoodka ka ahaa waxa ay ahaayeen Maxamuud Axmed Cali, Maxamed Shire Maxamed, Yuusuf Ismaaciil Gandhi, Cabdisalaam Xasan Suudani iyo Yuusuf Xaaji Aadan. haddaba bishii Sebtembar sanadkii 1930 ayaa kadib markii Talyaanigu ku adkaystay ayaa waxa la dhamaystiray calaamadinta soodinta u dhaxaysay dhulka Soomaalida inta Talyaanigu xukumayay xilligaasi. Ingiriisku waxa dabeetana uu ku dhaqaaqay in la calaamadiyo soodinta kala qaybinaysay Ethiopia iyo iyaga dhulka Soomaalida oo ay qaybsadeen oo heshiiskaasuna u dhacay sanadkii 1897 si taasi loo meel mariyo guddi labada dhinac ka kooban ayaa walwal meesha la yiraahdo tagtay bishii November sanadkii 1934 haddaba ilaa iyo intii heshiiskaasi kala qaybinaya qabaylka Soomaaliyeed ay Talyaaniga iyo Ethiopia kala saxdeen sanadkii 1908 Talyaanigu waxa uu ku soo durkayay dhinaca Ethiopia dhulka Ogaadeniya waxaana la shaqeynayay waqtigaasi dad Soomaaliya oo ay ugu magac dheeraan ninka la oran jiray Oldin oo ahaa Suldaan Ajuuraanka oo awood lahaa lacag iyo hubana Talyaanigu siiyay. Ethiopia la fahanteedu dhinaca Soomaalida ma taageero la'ayn waxa kamid ahaa Cumar Samataro oo Talyaaniga ku weeraray Ceelbuur sanadkii 1926 una gudbay dhinaca Ethiopia markii dambe goobtaasi dabadeetana waxa isku dhacay ciidamadii Talyaanigu lahaa ee fadhiyay iyo qaar ka socday Ethiopia. Talyaaniga oo midaba ka diyaar garoobay isagu dhinaca Soomaalida ee uu fadhiyay dhinaca Eritrea dagaalkii halkaas ka bilowday waxa uu dhaliyay in Talyaanigu si buuxda uu qabsado Ethiopia bishii May 7 sanadkii 1936 dagaalkaasi waxa Talyaanigu ay kaga soo kabteen magaxumadii ka soo gaadhay dagaalkii Adwa ee Ethiopia kaga adkaatay sanadku markuu 1896 haddaba dareemadii xagga wadaninimada iyo fahamka gumaysigu waxa Soomaalida uu ku dhashay marka laga reebo dagaaladii sayidku uu galay ee Ingiriiska uu la galay iyo kuwii Biyaamaalku ay kula jireen Talyaaniga markii reer magaalnimadu ay bilaabantay oo la degay magaalooyinka ay ka mid tahay magaalada Muqdisho meelahaasi waxa degay askartii ka soo laabatay ololihii Talyaanigu uu ku qaaday dalka Ethiopia waqtiyadaasi waxa ka bilaabmay dhinaca koonfurta kulamo hoose hase yeeshee waxa Talyaanigu ay cadaadinayeen cagta ay saareen wixii halis ku noqon kara maamulkooda. dhinaca Somaliland dhaqdhaqaaq ka lamid ah ayaa ka bilaabmay oo ay ka dambeeyeen xiriirkii cadan la lahaa iyo mujtamacyadii badmareenka ahaa ee deegaankaasi u dhashay waxa kale oo weli ka sii jiray dareenkii halgankii daraawiishta waxa dardar iyaguna sii galay dadkii wax ku soo bartay Suudaan iyo Cadan dadkii baraarujinta sameynayay xilligaasi waxa kamid ahaa Xaaji Faarax Omar oo kamid ahaa shaqaalihii maamulka Ingiriiska hase yeeshee markii dambe guubaabadiisii awgeed markii loo adkeysan waayay Ingiriisku masaafuriyay magaalada Cadan markii uu Cadan tageen Xaajigu halkii ayuu ka sii waday isagoo jaraa'idka wax ku qoraya jiray araajina u soo gudbin jiray xukuumadda Ingiriiska uu ku sheegayo mowqifka iyo aragtida dadka Soomaalida sanadkii 1935 dad u badnaa ganacsata yaryar ayaa magaalooyinka Berbera, Burco iyo Hargeysa ka bilaabay urur siyaasi waxa xilligaasi soo baxay urur la oran jiray SNS Somali National Society oo ujeedadiisu ahayd horumarinta waxbarashada iyo wax ka qabashada khilaafka qabaa'ilka sanadkii 1937 shaqaalihii maamulka Ingiriiska ee Soomaalida ahaa
ayaa urur samaystay la odhan jiray Somali Official Union. markii haddaba uu bilaabmay dagaalkii labaad ee adduunyada bishii August sanadkii 1940 ayaa Talyaanigu Ingiriiska ka qabsaday dhulka Somaliland oo Ingiriisku uu ka talinayay hase yeeshee muddo 7 bilood oo kaliya ayuu haystay. Ingiriiska ayaa markaasi qabtay labada qaybeed oo Soomaalida markii dambe waqtigaasi Ingiriisku haystay koonfurta Soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ayaa ka bilaabmay siyaasadeed kii ugu xoog roona uguna muhiimsana waxa uu ururkii la oran jiray Somali Youth Club amaba SYC oo bishii May 13keedii 1943 laga furay magaalada Muqdisho kadib markii muddo 7 laga xaajoonay furitaankiisa iyo distoorkiisaba sarkaalkii xagga siyaasadda ugu qaabilsana Ingiriiska waqtigaasi halkaasi fadhiyay. naadigaasi waxa uu ka koobnaa 13 xubnood. dhiirigelinta ururkaasi raggii ugu xooga badnaa waxa ka mid ahaa Cabdulqaadir Sakhaawadiin, Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaarke iyo Xaaji Maxamed Xuseen. 3 sano kadib waxaa rasmi ahaan xubno uga ahaa 25,000 oo qof. sanadkii 1947 waxaa naadigii SYC uu isu bedelay SYL, waxaana uu laama ku yeeshay Ogaden, Hawd, British Somaliland iyo Kenyaba. SYL waxa ay bilowday dugsiyo, waxaana la dhiirigeliyay fartii Cusmaaniyada oo yeelatay muhiimad wadaninimo. Aw Jaamac Cumar Ciise ayaa inooga warramaya. waa nimankii leegada curiyay 13 leegada ayaa la yiraahdaa. 13 nin weli kama maqal idaacadaha gobolladay ka kala yimaadeen. aan isweydiinay ma reer xamar bay ahaayeen, ma reer galbeed bay ahaayeen, ma reer bari bay ahaayeen. 3 nin waxay ahaayeen reer Banaadir, Cabdulqaadir Sakhaawadiin, Xaaji Maxamed Xuseen, Dheere Xaaji Dheere. 3daasu reer xamar bay ahaayeen, reer Banaadir baa la oran jiray. 4 waxay ahaayeen reer Mudug, Yaasiin Xaaji Cusmaan, Daahir Xaaji Cusmaan, Maxamed Xirsi Nuur, Cali Xasan Maxamuud. 4taasna waxay ahaayeen reer Mudug. 3na waxay ahaayeen Shabeellaha Dhexe, Jowhar iyo aagaas ayaan u jeedaaye. Maxamed Cali Nuur, Cismaan Geedi Raagi, Maxamed Faarax Ilowle. 3daasuna waxay ahaayeen Shabeellaha Dhexe. 3na waxay ahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose, waa Maxamed Cusmaan Baarbe iyo Hudow Macal Cabdille. ninna wuxuu ahaa gobolka Togdheer, koonfurta magaalada Burco, Maxamed Xaaji Cabdullaahi Xayeesi. Ingiriiskay u tageen oo waxay yiraahdeen waxaad noo ogolaataa meel kilaab ah oo aanu ku sheekaysano waxna ku baranno. maxaa yeelay dawladdii militariga ahayd oo Ingiriiska ahayd ee markaa dhulka joogtay ayaa waxay doonaysay niman dhalinyaro ah oo wax la baro oo xafiisyada iyo ka shaqeeya. dhibaato kale ma kulmina waa u ogolaaday. marka waxay soo saareen 4 qodob oo waaweyn. qodobka ugu horeeya waxa markii horeba waa ugu jiray wax tacasub qabaliya inaan la sheegin, wax kala soocidi inay jirin, wax dariiqooyin ah oo la kala sheegtaa inay jirin, wixii ummadda kala kaxaynaya oo dhan oo tafarruq keenayana in lala dagaalamo. xuquuqda Soomaalida meel ay joogtaba in la raadiyo. 5 Soomaali ee kala goobaan in la isu keeno. isticmaalku meel joogaba in laga hortago oo dhulka laga saaro. gobonnimo iyo istiqlaal si lagu gaaro in habkeed loo dagaalamo. 5 qodob ayay markii hor dhigeen. xilliyadaasi Ingiriisku uu wada talinayay Soomaalida ee dagaalkii labaad kadib Ethiopia waxa markaaba ay ku jirtay in loo soo celiyo reserve area dhulka la yiraahdo oo markaasi heshiis ay kula gashay Ingiriiska sanadkii 1942 iyo 1944 heshiiskaasi oo Ingiriiskuna ogolaaday. Talyaaniga oo laga qabsaday dhulka koonfurta Soomaaliyana waxa uu ka shaqeynayay sidii uu isaguna ugu soo laaban lahaa halkaasi. sanadkii 1946 ayaa wasiirkii arrimaha dabadda ee Ingiriiska Ernest Bevin waxa uu soo jeediyay in danta Soomaalidu ay ku jirto in wadan kaliya loo wada dhiibo. taladaasi hase yeeshee waxa ka soo horjeestay oo diiday Ethiopia. 3 wadan ee kale ee dagaalkii ku guuleystay iyaga la fahaantooda miisaan arintaas lama yeelanin. 4 wadan ee haddaba dagaalkii labaad ku guuleystay ayaa waxay guddoon ku gaadheen in guddi ay u diraan wadamadii Talyaanigu haysan jiray ee laga qabsaday si loo soo ogaado dareenka ay qabaan dadkoodu. wadamadaas waxay ahaayeen Soomaaliya, Eritrea iyo Liibiya. bishii January 6 sanadkii 1948 ayaa guddigaasi gaadhay magaalada Muqdisho. marka ay guddigu gaareen magaalada Muqdishona waxa ay la kulmeen kala qaybsanaan Soomaalida dhexdeeda, waxaana kuwa iyagu taageersanaan Talyaaniga loo dhiibay ay la soo baxeen calamadii Talyaaniga iyo halku dhagiye Talyaaniga. hase ahaatee guddi
waxa ay codsadeen in SYL loo ogolaado inay sameeyaan banaanbax ay ku eegaan dadku sida ay doonayaan 11 bishii Janaayo sanadkii 1948 hase ahaatee Talyaanigii meesha joogay iyo kuwii taageersanaa ayaa iyaga oo hubaysan soo baxaysay ay u kala jebiyeen kulankii SYL ay qabanqaabinaysay halkaasi dabadeed waxa ka dhacay dagaal ay ku dhinteen ilaa iyo 50 qof oo Talyaani sida ku qoran buugga la yiraahdo A Modern History of Somalia oo qoray professorka la yiraahdo I.M. Lewis haddaba Cabduqaadir Maxamed Aadan oo soobe ku magac dheer oo kamid ahaa ragga muddada dheer iyo ku jiray siyaasadda Soomaalida ayaanu weydiinay kuwa Talyaaniga doonayay waxa barnaamijkoodu ahaa January 1948 waati qodon iyo saddex Talyaani lagu dilay waati dhibaato ka dhacday halkii waa la noqday maxay dhibaatadu ka dhacday la isku dilay waxa la isku dilay groupkii watay Talyaaniga iyo group leegada oo qeylinayso oo lama suurtooyso yaa iska hor yimaadeen marka qoladan Talyaaniga wadata yahaan horta markaas conference la dhihi jiray waa kuwa adiisha asaabti kala isu tagtay ahayn maxay doonayeen Talyaani doonayeen waxay ku doonayaan muddo 30 sano inuu sii hayo inuu yaraan al aqal yani ay la noqdo 30 sano kadib gobolnimada la siiyo saasay wateen kontonkii yaa waxa la gooyay November inuu Talyaani meesha joogo 10 sano istiqlaal dadka gaarsiiyo maxaa keenay in Talyaaniga loo dhiibo markii la warsaday liida Talyaani rabtaan laga waxay warsatay 4 power waxay warsatay 4 power in iyagu hayaan Talyaani wuxuu sameeyay asagana lobbying in loo dhiibo wuxuu ka sameeyay United Nations gudaheeda markii 10 sano loo dhiibay Cabduqaadir Talyaaniga leeydi Soomaaliya adiga haynaya ma jireen ururo iyagu markaasi kuwan hore ee aad sheegtay mooje kuwa markaasi dhashay oo kala qaybsamay oo markaa SYL laftirkooda ka soo horjeestay markaas aniga aan joogo SYL yaan ahayn condition kana anaga dhalinyar nin wax garanay dhab SYL buu ahaa dadka dhan SYL bay ahaayeen markii Talyaaniga loo dhiibay 1947 March xisbiya digil inuu la aasasay digil maflii marka qabiilkii xaga inta u soo qabiil ee hore wax kaliya qabiil aan sheeganaynin oo ummad isu keenay oo Soomaali isu keenay oo halka dhigay SYL waatay waxa la bilaabay in lagu kala ordo istiqlaalki SYL waxa ka soo daahiray aniga tayda aragtadayda qabiilnimo aniga waxaan ahaa ragga u horeeyay oo SYL ka tagay sanadkii 1951 bishii November haddaba sanadkii 1949 ayaa golihii guud ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa muddo 10 sanadood u xil saaray Talyaanigu inuu xukumo koonfurta Soomaaliya 1948 ayaa Ingiriisku isna go'aan ku gaadhay in dhulka Soomaalida ee maanta ka tirsan Ethiopia uu ku wareejiyo sidii ay dhigeen heshiisyadii labada dhinac dhex maray sanadihii 1942 iyo 1944 go'aankaasi oo jigjiga laga dhawaaqay waxa ka dhashay rabshadahaasi oo ay ku dhinteen dad tiradooda ay gaadhiso ilaa 25 qof oo Soomaaliya hase yeeshee 23 bishii September sanadkii 1948 ayuu Ingiriisku Ethiopia ku wareejiyay dhulkaasi 29 November 1954 ayaa Ingiriisku heshiis cusub uu la galay Ethiopia oo kaga baxay dhulka la oran jiray Hawd iyo Reservoir goorma ayaa haddaba Ingiriisku u sheegay dadka Soomaalida ah inuu bixiyay Hawd iyo Reservoir ama dadka Soomaalida ay ogaadeen waa kan Umar Artaqaalib sanadku markuu ahaa 1954 xisbiga kaliya siyaasiga markaa jira wuxuu ahaa SNL isku way soo jawaabtay waxay tiri u sheega waqtigii baa la gaaray ay waajib noqotay in loo sheego heshiis sir ah oo inaga dhaxeeyay haddaan Ingiriisnahay iyo dawladda Ethiopia oo la kala saxeexday 1944 taasoo tixraacisay heshiis kale oo 1897 la kala saxeexday markii xuduudda Afrika la sameeyay 6 bilood ayay arrintii qaadatay
intii yani ay isu diyaarinayeen say noogu sheegaan maalintii dambe ayaa barastaafka naftiisu ku dhawaaqay 28 February 1955 28 February 55 ayaa lagu dhawaaqo la yiri dhulka la yiraahdo Hawdiya Reserve Area malihidin Ethiopia ayaanu ku wareejinay intaas markay dhacday meel kasta magaalo kasta waxa laga sameeyay mudaharaad ninkii hadlaabana uu ku halqabsaday wuxuu yiri Ingiriisku khiyaamay waxa dhacday dadkii Soomaaliyeed shacbigii inuu kacay markaas waxa la diyaariyay wafdi la yiri lana loo diro waxa ay kala ahaayeen Sultan Abdurrahman Sultan Diiriye Allah yarxamo Sultan Abdullah Sultan Diiriye Allah yarxamo Sultan Biixi Foley rahimahullah Michael Mariano Abdurrahman Ali Dubbe ilaahay uu naxariisto ayaa lana loo diray sidii aan horeba u sheegnay 29 bishii November sanadkii 1954 ayaa Ingiriisku saxiixay heshiis cusub oo la galay Ethiopia oo uu kaga soo baxay Hawd iyo Reserve Area dhulkii la oran jiray mudaharaadyo ballaaran ayaa ka dhacay Somaliland oo lagu diidan yahay dhulka Ingiriisku uu wareejiyay waxaana markiiba la qaban qaabiyay wufuud in loo diro London iyo New York April sanadku markuu 1956 ayaa wafdi ka socda guddiga baarlamaanka Ingiriiska ugu qaabilsan xiriirka dibaddu ay tageen Ethiopia si ay uga soo xaajoodaan Ethiopia dhulka la isku haystay ee Soomaalida oo ay doonayeen inay dib uga iibsadaan hase ahaatee uma suuroobin 25 bishii August sanadkii 1956 ayaa boqorkii la oran jiray Haile Selassie ee Ethiopia markaasi ka talinayay hadal uu ka jeediyay magaalada la yiraahdo Qabri Dahare waxaana uu ku sheegay in Soomaalidu ay ka mid yihiin qoyska weyn ee Ethiopia وهاجاك دقيسي على انتاسنا وحانو كسو قبقبيننا برنامج كيسا دحاد وكمدا برنامج دي حرير كايانو كاقهد ليني تاريخ دا صومالي دا